laba nin oo walaalaha baa geel wada lahaa mid baa salaada tukada salaada laba galbood baa asagoo casar tukanaya geeli libaxanta u soo dhacay laba galbood laba leef kala cuna maalinta walaalkii u yimi walaalo maxaad qabanaysaa markuu geeli dhurwaagu cunayay wixii walaalo waa tukanay shalayna waa tukanay wixii walaalo geeli salaada ka daa oo haddaadan ka daynin subaxda dambe iyo tasbiixda ka daa oo haddaadan ka daynin salaada casar ka daabi salaada casar ka daa haatan waxaan leeyahay ma jarteenow siyaasadda ciyaad ka daay oo haddiina ka daynayn siyaasadda cadowna xambaarka ka daay oo haddiina ka daynayn sokeeye riixa ka daay sokeeye riixa anu waxaan idhahdaa ninana ima sharaxna ninana ma diidani buntlandna cidi kama sharaxna annagu marka waxaan kala saarayaasha maxkamadda dastuuriga ya federationka god ugu horreeyba ya waa hubaaye ya ma furna baa ku xiran yihin annagu maanta ma sharaxnin laakiin idinka la intijaabinaya haddaanu haraasida ka baxsanno madaxweynaha hadda jooga annagu hadda madaxweyne ma rabno dowrka ku xiga annagu ma rabno laakiin idinkaa imtixaanan maanta ninka inay ka soo baxo hadduu xumaado waadama layna ku celin maayo ya intiina sharcan degaanka uu ka yimi loogu celin maayo waa tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu marka hore salaan guud soomaali maxamedey meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan marka labaadna barnaamijkan hadduu ku soo gaaro oo aadan beesha aad tahay beesha haddii alkuur aan ahayn aadan ahayn beesha daarood xan buu kugu noqonayaa xanta hadaawane kasii gudub oo luuqa reerka u socdo ugu dir wuxuu ku socdaa barnaamijka ku foorarnaa maanta beelweynta daarood gaar ahaan reerkaan ku dhashay ee ma jeerteen maalin dhawaad waxaa qada sharaf lagu sameeyey musharaxiintii iyo siyaasiyiintii isugu yimid shirkii garowe ka dhacay caasimadda maamulka dowlad goboleedka puntland ee garowe ee heritage ay qabatay shirkaas kabacdi waxaa siyaasiyiintii hawiye lagu casuumay beeraha jibigalle ee ku yaalla caasimadda puntland waa garowe shirkaas waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee dowladda puntland ahna senator dowladda federaalka waa sheekh cabdiraxmaan maxamed faroole waxa uu ka sheegay hadal fajac iyo dhabannahays ku noqday qof kasta oo daarooda ama majeerteena ama maxamuud saleebaan hadalka anigu waa qaawiyaaye qabyaaladnagama ahe hadda ogow hadal si daaragtiya oo u yidhi hawiyow mid ka mida idinka baan dabagelaynaaye wiilkaa daarood na waa idinka horwareejinayna waa idinla dilaynaaye iska soo saara midaan dabagalno la yaab iyo ama kaag iyo fajac bay noqoto waxay hadalkaasi toos u caddeeyey tuhun la qabay tuhunkaas oo ahaa xulufada degan garowe saldhigeeduna yahay magaceedana la yihahda aranjan faroole ogow wuxuu ku fiican yahay oo keliya shaksi beenlow ah ama runta la gabada buusan ahayn nin xun maa markasta hadduu mayga qabsado waxa uu og yahay calooshiis og tahay waa hunqaacaaw ama bartuu ka sii daaya waana sifada lagu garto ninka ragga ah sifada lagu garto wey aan muwaafaq ahayn faroole hadduu kula dagaalo mid waa lagu xantaayo ma samro waa lagu xantaa laakiin been iyo munaafaqad laguma xanto waana inta kaliya aan ku taageero isagoo hadalka caddaynaya wuxuu yidhi hawiyow nin iska soo saara aanu dabagalno waxaan isweydiiyey 4 sano aada mucaarad ahaydeen oo aada wiilkaa mareexaan mucaarada ku ahaydeen dee raggu waa isqaban jiray annagay mareexaan waa isqaban jirnay kursiga waa isku qaban jirno maanta naguma horreyn bahashuy haddaanu isqabanana kursigaanu rabnaa iyo annagaa rabneen noo daaya baanu isku haysan jirnay kursiga baneeyo hawiya sii qodha iyo xaraday iskumaanu dagaali jirin ceeb iyo filan waah iyo dhabannahays bayna nagu noqotay haddaan nahay beesha ma jirteen ninka ragga ha ku dilo hami iyo maskax
iyo dan uu kaalayaa kugu dilo balse nin kale ha kuu dilo qodha iyo xerada inaysan nimada meel ka soo gelin 4 sano oo anigu aan nimankaa mucaaradayay waxaan islaa kusoo ka rido mid majarteena saaro laakiin baarqabadii aslaa meeshay aadayaan dhambaalkaasa ka soo dhacay dhambaalkaa markaan qiimeeyey marka horeyna xantiisa aan u hayay Faroole sidaan idinku sheegay ma aha nin beelow ah waxa uu ogaaday xisbiga maanta wax ka ololeeya oo Puntland jooga inuu yahay nimanka la yiraahdo Arinjan inay jiidanayaan ninka la yiraahdo Khayre iyo rag la mid ah hatta dad gadni kara ama hawiye dhexaysa gadni kara hadday jiidanayaan hatta macnay ahaan lahayd laba nin oo hawiye bay labada dhinac haystaan midi waa nin la yiraahdo Cabdikariin Khaliif Guuleed waa ninkii aad garanaysaa wasiirka inta laga dhigay markuu waxa wadiga is casilay madaxweynaha maamul gobolka laga dhigay markuu waxa wadi waa is casilay galmudug madaxweynaha ka haayo hatta isbaaran qaaday caaw ma dhihi karo caaw adilay galmudug waxa ka qabata liyaado isbaaran hatta qaaday ma dhihi karo wasiir buu ahaan jiray amniga asaga inta qajray is casilay ninka noocaas ay wataan maanta ninka kale waa Khayre oo murursada Khayradda iska sheekaymayno ay taxal mar rabo musharaxiintaas inaan ku faagto ama wax ka sheego waxay yihiinba waxa kuwa kaliita kan wata hawata ma xuma rag waas raaca saaxiibna waa yeesha balse qodha iyo xerada iyo xiniintay nin hawiyaa baan dabada qabanaya oo in adeerkii baan tumburyo la dhacaya waxay noqotay wax majeerteennimada iyo maxamuud salaanimada ku cusub waxayna caddayn iyo daliil toos u tahay in ay ku fashilmeen siyaasadda waa reerkii majeerteen ahaa waa reerkii siyaasadda u ahaan jiray qiblada siyaasadda waa reerkii xarigay guntaan aan cidi furi jirin waa reerkii looga dambeey jiray waa reerkii la oran jiray daarood aan majeerteen ku jirin ma ahi baa dhaanta maanta waxaan marayaa anoo majeerteena weliba maxamuud saleebaana inaan ceeb meelaha la mari waayo indha adeegna aan midiya la soo taagnahay waa yaab iyo ama kaag inaan walaalkay dila ma xuma oo rag waas dili jiro qaabiil bahaabiil dilay balse inaan walaalkay aan dan anigu aan leeyahay u dilin dan nin kale leeyahay u dilaahay waa fajac iyo ama kaag waa doqonnimo hormuudkeed waa gunnimo abaabulkeed waa waxaan nasabada meelba ka soo gelin waxaan leeyahay Faroole markuu inta ogaaday Arinjan cidda ay wataan waxa uu isla markiiba kaga dhawaaqay meesha caloosha Arinjan wuxuu ku jiray oo ahaa wariyaanu daba galnaa oo ra'iisul wasaare iyo wax noo balqinaya yaanu daba galnaa oo ra'iisul wasaare iyo wax noo balqinaya waxaan qirayaa kalmeeshii ahayd gabaygu meesha kaga jidhay daarood aan majeerta ku jirin ma ahi baa dhaanta wallaahi billaahi taala waxaan qirayaa inay kaga haboonayd daarood aan mariixan ku jirin ma ahi baa dhaanta waxaan moodayaa hawiya waxay moodi doonaan iyagoo dan leeyahay idimadan lihiyo oodi say isku xogtay isku xoqda wiilkaas waxaan qabaa horta kow wiilka hadda kursigu la leeyahay ka dhamaada lagu hayo iyo 8 February hadii la gaaray waa lagu darsanaya iyo hadii la ku roon xagay ka dhacday iyo 91 baa loo laabanaya waxaan u maaynayaa su'aasha maalin waxa ka jawaabay nin siyaasi ah waxaan u maaynayaa inuu ahaa Cabdikariin Mahdi Guuleed buu ahaa u maaynayaa waxa la weydiiyay 8 February hadii la dhaafo waxa la sameeynaya buu yiri xilliga Xasan Sheekh wixii la sameeyay xilliga Sheekh Shariif wixii la sameeyay Sheekh Shariif hal sano ka siyaado loo jeedo oo laqay Xasanna lixu dabada ka dhig kan
farmaajo weeye ma garanayo waxaa u diidayahay inuu 6 ama sanad weliba kuwii hore waa ka tugtukroon yahay inuu 2 caadi iskaga liqo waxay ku dhaanto garan mahayo 91 cid u laaban mayso 90 mar hadii loo laabanayo waxa la sii maraya 2006 la sii maraya hawi 2016 ma ogola daaroodna 91 ma ogola marka halka yaan la sii marino 91 la aadini naga badaaya labadaba waxay ahaayeen qaxi daarood iyo qaxi hawiye 91 daarood baa qaxay 2006 na hawiya qaxay ninkasta ay way laab garanayaan marinaya inta hadaan kaga gudbo majartaan waxaan leeyahay barnaamijkayguba ayagu ahaay majartaan waxaan leeyahay ma jirtee dad baa ilaahay naga dhiga Faroole afka iyagu ku hadlay waxa uu sheegayna munaafiq ma aha waa xaqiiq waxa uu sheegay inuu san arag asaguna sharaxnayn waxaan lana uusan arag reerkii inay u soo hareen inay danay oo miran oo aan sharaf iyo bahalka raadinayni iyo ina shida iyo xasan shira iyo aan sharaf iyo raadinayni ma jeerteen maanta inuu u soo hareen caadaqaatayaal calooshood la ciyaara inuu u soo hareen waxay cuntay caabudaa intii la oran jiray wax gobannimo iyo Soomaali sharaf ka keen ama Soomaali midee ama hadii aan ku rooyaan madax sare noqo hiigsanaya inay soo bixiyaan mid kasta ay akoonkiisa ka fakarayo buu Faroole cadeeyay asaguna oday sheebay yahayo uusan madakan uba sii socon kursi iyo waxa raadinayn dhaqaale la wahay hawiye waa harjadaya ilaawe lulaawe doqon iyo diracba kursiga ay soo wada raadiyeen heer waxay la gaadhay dhahan majority anaga ah wax kastaba ha dhacaane majartaan waxaan leeyahay ilmaade rayaalow haddaanu ceebownay yaana daarood ceebayn haddii aanu ceebownay annagu ha nagu ekaatee yaana daarood ceebayn qofkii haddaana waxba tarayn daaroodka kaloo isa sharaxaya ama wuxuun hididiilaha iyo bahalkii ay ku jirto yaana annagu lagu xaqabane aan idhaahno keep going wanginadeer inta aan uguurno kaliya waa haddaana baritaarayn waa haddaana garab istaagayn aan dhahno inaadeer hore soco dugaag iyo cadow baad igaga dayrnaane dugaag iyo cadow baad igaga dayrnaane hadda waad ilaab garan intaas miyaan garan weyn wuxuu yahay haddaan waayay calalna ina shiratan iyo Nairobi miyaan waayay neefan xarbiga naallo ugu fuulo haddaan waayay ciidoo naqli inaan nugaal daaqo miyaan waayay nuurkii aliya nabiga jaahiis war haddaan weynay sharaf iyo karaamo inaan Soomaali ku xukunno oo aanu hankayagu noqonay inaanu Puntland iyo habraha bahalkooda sa u faganno warday yaana gobanada ka tagino daaroodka kala sharaxan oo umada wax la qaybsanayahay yaana lagu xaqabane ayaga aan baritaar ra'iisul wasaare duu khayr leeyahay ama sharaf leeyahay Umar Cabdirashiid yaa laga wareysan lahaayo maalin la sii cayrinay maalin la soo cayrinay warmeena socota haddii ra'iisul wasaare sharaf leeyahay kii 7 daqiiqo lagu cunay baasaa idin ag fadhiyo indhaha idin ka mirigsiinaya oo idin leh maanta i taageera warna alla shaydaan ku yaale ragga xiniyahooda meel baa la saaray nimanka mareexaan wargarab istaaga daaroodka hadda isma buulay ma wahayne ogaadeenkooda Soomaali suma qabaane daaroodkan karo haddii la ku roon yahay leelkasaha iyo haddii la ku roon yahay dhulbaantaha iyo hartiga kalo warsangeliga iyo ayana hidilayo kama muuqato halka inay aadi karaan kama muuqato ma arag waliga Allah mid sharaxaya xataa warbal mareexankaas waxba yuusan adiga ku tarin waxba yuusan ku qabanay dugaag iyo cadow kaaga dayrnaani war adeer gacay si bood garee oo haddii aadan si bood garayn wuxuu walaalow ninba waxa laga hayaa
nin baa hadda ka hor wuxuu samayn jiray laba nin baa geel wada lahaay walaala ah wuu tukan jiray mid baa tukada soo galabkii dambe asagoo tukanaya casar tukanaya geeli waxa cunay casar riiqi halka qoraxdu si riix markay yeestaan badana bahalo soo baxaan geeli baa nefrit bahal rit libax rit galabkii dambe hadana asagoo tukanaya geeli hadana bahal kale rit maalin dambe yuu maxaa qabanaysa walaalo tukanay salaad ninka ku daaha maalin kasta wixii walaalo geeli salaada ka daa walaalo geeli maalinta raacay salaada ka daa oo hadaadan ka daynay subaxda dambe ka daa oo hadaadan ka subaxda macnaheedu waa wardiga badan oo alisii fadhinaysa meesha oo hadaadan ka deenayn salaada casar ka daabiyo salaada casar xilligaas baa halka soo dhacay jarteeno siyaasadda ciyaarta ka daayay oo cadow raaca ka daayay oo hadiina ka daynay shisheeye raaca ka daayay iyo sokeeye dilki ka daayay oo hadiina ka daynay ka fariiso ka daayay bahashaba ka fariis oo daayay adii aan ku roon nimanka tolka garab istaag waxba ka waayimaysaan waxba asaga un baa qadeynayay asagu bal qadeeyay inta sameeyay bahasha ciyaarta ka daayay daarad ceebays marreexana waxaan leeyahay ana caawa afka ma jarteen ku hadlay muddo ay kala leed laakiin waxaan islaha waxba idin socdaan islaha waxba meesha idin iimaanay hum ben ba soo diraysa laakiin markaan arkay clipka xunka markaan daawaday bid ya bid johorodan xaaray ilaahay baan ku dhaartay clipka markaan farolo meesha ka soo jiba galle markaas ay hawiyo saab da ilaahu sanad caabeed hana taagi ilaahu sanad caabeed hana soo taagi sanadka sanad ka xun 2020 bilaabayo dhamaayo haraanti iyo hardibi nooga tagay ceeb hadalka farolo iyo hadalkii galaaliyo haraantidii sanadka dhaweyd haraantidii 2020 be haraantidii 2020 iyo ma qan 2020 hardidiisa inay ahayd kolba mas'uuliyadka dhacay be waxaan leeyahay wartalkan waxaan hambayn armuday Soomaaliya ugu daba fayshanay armuday siyaasadda weydiinaysa war waa fashilanay ninka ragga aan dhaw waa fashilanay ceeb ma armaantina halka ina garow hawiye ka jiidaan tiraadaan wiilka marreexan oo meesha banne wiilka marreexan oo meesha banne tiraadaan wardayna argacli war taariikhdu is qoraysaa taariikhdu is qoraysaa dhaxalka dambe caruurteena u taala warday ma jirta marreexan daan dilayno anagu aan inta duulo loo dagaan anaga fuulayne laakiin kadago لو حتى للبشر عليها 19 لو حتى للبشر عليها 19 فرينتاس waxay ku socotaa ma jirteen fariintaasi daarad isma saarnay ma jirteen bay ku socotaa iga gaarsiiye fariintaas oo qof kasta ma jirteen meesha taagay ugu dira nin tolkii runta u sheegi waaye ma war dhaxalka ya caruurteena dambe يعني عيب سو تشيد انا اورن وعيالكي كوي يعني اورن انت اسان كسو كوبيا هذا بدن ما يا waxaan ku soo koobay wajarteeno siyaasadda ciyaarta ka daay oo hadiina ka daynaysi ciyaar suuqnimada ka daay oo hadiina ka daynayn cadownimo raaca ka daay iyo sokeeye riix ya iyo hadii waxaan ilaahay fariinta ay gaarsiiyeen nimankaas intii marreexan ku dhaganaan afis baan la ka weydiistay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh